marxaladda boqornimada. Marxaladdan waa marka uu qofku gaaro bisaylka iyo fahamka saxda ah ee nolosha. qofka gaara heerkan boqornimada ah waxaa lagu gartaa ma galo dagaal iyo fowdo macno darro ah. caqligiisa uma dhiibo qof kale, iskuma dhibo inuu la yimaado dhaliil iyo cadeymo uu ku muujinayo in kuwa la doodayahay ay been sheegayaan. naftiisa lama barbar dhigo qof kale. wuxuu ogaadaa in noloshiisa aysan ku jirin wax la dhaho quus iyo rajabeel. wuxuu garowsadaa in noloshiisu ay ku xiran tahay habka uu u fakarayo. waxa uu ogaadaa in dadku aysan malaa'ig ahayn, ma raaco wararka dadka kale. waxa uu gartaa in hanuunku uu ku jiro gacanta Ilaahay. waxa uu gartaa in dadka oo la noolaado ay tahay sababta ugu weyn ee farxadda. waxa uu qiraa inuu isagu mas'uul ka yahay arrimihiisa. waxa uu caddaata inaysan jirin cid u qaadaysa murugtiisa. intaas ayaan ku ekeenayaa muuqaalka. haddii uu ku soo gaaray like dheh, sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer gare ama koobi linkiga taabo. mahadsanid.